weerarro waaweyn ayaa ka qarxay 3 meelood oo kala duwan oo dunida ah taasoo mar kale cadaadis gelisay xaaladda caalamka. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ka dhacday koonfurta Iran halkaas oo Mareykanku ka fuliyay duqeymo waaweyn oo ku tilmaamay self defense. Weeraradan ayaa lagu bartilmaameedsaday goobaha gantaalada, dooniyaha aan ciidana wadin iyo kaabayaasha militari ee ku dhow marinada muhiimka ah ee maraakiibtu isticmaalaan. Labada dal waxay ku jiraan xabad joojin, sidoo kalena waxay marayaan marxaladii ugu dambeysay ee wadaxaajoodiyada nabadda. Si kastaba ha ahaatee, weeraradani waxay si weyn u wiiqi karaan dhanka kale sida khariirada ka muuqata Ruushku waxa uu ku qaaday caasimadda Ukraine Kiev weerar boqolaal diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo daroonis ah iyo gantaalo ballistic ah iyo mid ka mid ah gantaalada hypersonic ah ee caanka ah ee Oreshnik. Difaacyada cirka ee Ukraine ayaa la daalaa-dhacay weerarkaasi taasoo sababtay burbur ballaaran oo gaadhay kaabayaasha iyo dhismayaasha magaalada caasimadda ah. Ruushku waxa uu sheegay in weerarkan uu yahay argoosi ka dhan ah weerarkii ay Ukraine ka fulisay gobolka Luhansk, wuxuuna uga digay jaanibta inay si degdeg ah uga baxaan magaalada maadaama mawjado cusub oo weerarro ahi ay soo socdaan. sidoo kale Lubnaan gudaheeda Israa'iil ayaa bilowday weerarro waaweyn oo dhinaca cirka iyo dhulka ah kuwaas oo ka socda koonfurta iyo bariga Lubnaan iyadoo ay weliba jiraan heshiisyo hore oo xabad joojineed.